wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo gacan ka helaysa hay'adda FAO ayaa maanta kala dirtay shaqaale caafimaad oo daweyn iyo qiimeyn ku soo sameyn doona xoolaha abaartu ay saameysay ee ku dhaqan gobolada Puntland. goobaha ay wasaaraddu xoogga saari doonto waxaa ka mid ah deegaano hoos yimaada gobolka Sanaag iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolada Bari iyo Karkaar halka oo isku guureen xoolo dhaqato fara badan kadib roobab halkaasi ka da'ay dabayaaqadii sanadkii dhaafay ee 2016. دكتور عبد الرحمن أحمد جامعة قسيمة واحدة دوينة حولها وسرد حنادة حولها بونتلان وكهذه مناسبة دي لوكرة دري كوحها عافماد أو بحياة قبلة وحى وشرحات كبحية ترى دقاتير تبحيسة هي مدة دوينة سعون دونتو. ما أنت الواحد وزارة حنادة حولها أي رتائن التهديد لهاي المو صدم تيم أو ككوبان تيم كيف أفرقف بغري الله وعتن قف أو دقاتير كالكاريال سكويشرة كواس أو مدبل سبعين داوين نمبر كأن دوين دون هذه إلى هاي الماء مدن وزير و11 مليون أو نف مدة صدق مع الموضة وحنا قياسي وحي دردارا إيو إن عند خاطير تلوش يعني شغال عن شغال يوري وسو قبل جيران أي تحي وحنا فيلا يا هذه إلى هاي من سفي عنو جورا إنه ما دونتو agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Axmed Cabdi Cali Shire Axmed Kayse oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay waxa uu kula dardaarmay dhaqaatiirta xanaanada xoolaha iyagu baxaya inay mas'uuliyad iska saaraan shaqada ay u hayaan bulshooyinka Soomaaliyeed. dhaqaatiirta waxaan leeyahay walaalayaal waxa lagu jira xilli adag oo abaar ah oo xoolihii ay in badan oo kamid ah ay baxeen gaajo iyo cudurro awgeed inagu waxa meynaan hakran intii tamarteena ahayd waynu qabanay وانا رجينا سيدي وناكسنيد aad hore ugu shaqeyn jirteen inaad insha Allah hawshan u soo fulin doontaan xoogga waxa la saarayaa meelaha xooluhu ku badan yihiin sida goboladii uu roobku ka da'ay December gobolka Bari Karkaar iyo Gardafu gobolada kalena tiiman baan u diraynaa insha Allah 120 qof oo shaqaale ah wasaaradda caafimaadka iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ka shaqeeya xoolaha ee bulshadu leedahay idinkoo ah ayaad hawshan fulin doontaan insha Allah waxaan rajaynayaa in hawshan guul inoogu soo dhamaato horena waynu u dardaaranay shirkeena shalay insha Allah si shaqooyinkan aynu hay'adda FAO la wadno ay inoogu sii socoto inoogu sii ballaarato waxaanu u baahanahay inaynu si wanaagsan aynu u fulino hawshan sidii wanaagsaneed horeba aynu ugu fulin jirnay inaynu ka sii kordhino oo ka sii hagaajino. عبد الجمال عثمان محمد وزيرك وزارة حنادة حولها بونتلان oo soo xiray munaasabada dhaqaatiirta lagu kala dirayay gobolada Puntland ayaa carabka ku adkeeyay inay dabagal ku sameyn doonaan qaabka ay shaqadu u socoto. arinta waxaan rabaa xal baan iska saarnaa in reportkiinu uu noqdo mid aan dambadan gelisaan dhigiina fulaan dhigiina furtaan dadka xoolaha la jooga waa dhaqaatiir ah wareysataan xanuuno badan baa jira oo abaartu keenayso وكل عادي أنا ونقول لدي قال لي أنا حين وحرمنا أنا سيهوس وقعدوا في شعون هذا هو شو يكتب هدي يقول الضلك وايو والحسابتين وايو هدي دول النماذج نروح نقول الساعة الآن دول النويجرين مركها ودسكو وحيد الدولار قفكستي وكل عام أنا بقى إنه قعدوا ورجعت في المشاشة يعني أنا صاحب له ذكوري أنا كنت إلى حسابتك وقعدان أنت قالك اللي سودي بنا ولا وحدة طبيعية صراحة والله والله أنا لقيت ويني حولها كلا دوينة كنا الصومالية أو أي سامسي أبارتك كتير أنت بدن قبلات الصومالية أي واحد عنك جيسنا يا هيدا فوق وحنا فلون يسوي سارد حناض حولها بونتلان وحقيقة بقعدنا يبغى له وقت الشقالة أو يدري يسوي سارد عافمات كدولة بونتلان هل كان ما أنت لو تشوف دريس هذا هتفتح عبد الله وربعين تكلسن جرو